iyadoo saacadihii la soo dhaafay si weyn loo falanqeynayay macluumaadka ku saabsan in Ukraine la gaarsiinayo noocyada kala duwan ee gantaalada ayaa afhayeenka madaxtooyada dowladda Ruushka Dmitry Peskov warbaahinta uu la hadlay waxaana uu yiri gantaalada Tomahawk oo Mareykanka uu soo saaro iyo gantaalada kaleba ma badbaadin doonaan dalweynaha Ukraine waxaana uu shacab ka qaaday tani inay sii kordhin doonto kaliya dagaalka u dhaxeeya dowladaha Ukraine iyo Ruushka isagoo ka jawaabayay wariyaasha su'aal ay ka weydiiyeen isbedelada ugu dambeeya ee dalkaasi Ukraine iyo sidoo kale hubka dowladaha reer galbeedka ay doonayaan inay Ukraine geeyaan waxa uu sheegay inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo ku saabsan wadamada gaashaanbuurta NATO hubka ay doonayaan inay geeyaan gudaha dalka Ukraine wuxuuna ka jawaabay hadalkii ugu dambeeyay ee madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mareykanka oo sheegay inay gantaalada Tomahawk iyo gantaalo kale ay geyn doonaan gudaha dalkaasi Ukraine sidoo kalena Mareykanka xilligaas wuxuu ballan qaaday inuu difaaci doono amniga wadamo badan oo gaashaanbuurta NATO ah si gantaalada Tomahawk ay gaashaanbuurta NATO u gaarsiiyaan Ukraine wada dheer ayay soo mari doonaan laakiin Ruushka wuxuu taagan yahay wixii aad doontaan keena Ukraine ma ka badbaadi doonto gantaaladeena maalin ka hor Ukraine ayaa la kulantay duqeyntii ugu xooganayd kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu sheegay inay nidaam difaacidka Patriot iyo nidaam difaacidyo kale ay ka heleen maamulka Israa'iil hadalkaasi markii uu yirayna haddii Ukraine waxay noqotay meel la isku wareysto wixii ka dhacay guud ahaan magaalooyinka dalkaasi waxyaabaha ka soo kordhay kula wadaagi doona insha Allah waxa si weyn loo falanqeynayaa kulanka la filayo saacado kadib inuu ka furmo gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan Virginia kaas oo u dhaxeeya saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ammaanka ee dowladda Mareykanka waxa la isweydiinayaa waa maxay sababta waqti xaadirkan Mareykanka in ka badan 800 oo sargaal oo isugu yeeray ma waxa loo diyaar garoobayaa dagaalka saddexaad ee dunida marka la eego Mareykanka sanadii ugu dambeeyay wuxuu waday dhaqdhaqaaq xoogan oo doonayo inuu dib ugu soo celiyo saameyntii uu ku lahaa caalamka falanqeeyaasha qaar iyo warbaahintu waxay ku doodayaan in Mareykanka uu muuqanayo u diyaar garowga dagaal adag makii saddexaad ayuu noqon doonaa mise dagaal uu la galo dowladaha gobolka waa waxyaabaha la isweydiinayo Mareykanka waxa la hubaa diyaar garowgiisa ugu xogan inuu diiradda ku saarayo loolanka kala dhaxeeya dowladda Shiinaha waxa kale oo qobarada qaar ay ku doodayaan in ujeedada kulankani ay tahay in la kala sifeeyo ciidanka in wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka uu doonayo in ciidamada uu ka saaro saraakiil loo arki karayo inaysan daacad u ahayn madaxweyne Trump lana sameeyo hoggaan cusub oo ciidanka kuwaas oo aqoonta iyo mabda'aba ku taageeraya madaxweyne Trump sidoo kale warbaahinta qaar waxay aaminsan yihiin in laga walaacsan yahay xaaladaha dhanka amniga isla markaana ay jirto halis dhanka amniga oo keeni karta in la isugu yeero 800 oo generaal iyo saraakiil sarsare ah iyadoo hal meel la isugu keenayo lana tixgelinayo qatarta suuragalka ah ee Mareykanka uu la kulmi karayo haddii cadow weerar uu ku soo qaado dadka qaarkiina waxay qabaan inay dhacdadan ay la barbardhigayaan tii Hitler uu sameeyay sanadkii 1935 markii generaalada Jarmalka loo yeeray oo lagu qasbay inay u dhaartaan inay daacad u yihiin Hitler sidoo kalena waxay dadku ay leeyihiin arintan waxay dadka xasuusinaysaa dhacdadaasi in marka saraakiisha Mareykanka suuragal ay tahay in lagu qasbo in laga shakisan yahay laguna qasbay inay madaxweyne Trump u dhaartaan oo shakiga ay ka bixiyaan oo ay yiraahdaan kuwa aragtay ayaan nahay wixii hadda ka dambeeya soo tani ma noqonayso marka mabdi'iisa inay ku taageeri doonaan dadka qaar ayaa aragtidaasi qaba dadka qaarkiina waxay qabaan aragtida ah in suuragal ay tahay isbedel in lagu sameynayo saraakiisha ciidanka waxa horay sidaani loogu sameeyo saraakiil ciidamada cirka oo Mareykanka ka tirsanaa si gaar ahaan General Charles Brown oo ahaa nin madow ah oo saraakiisha ciidanka ee Mareykanka kamid ah iyo Admiral Lisa Franchetti waxay haweeneydii ugu horeysay oo hogaamisa ciidanka badda ee dowladda Mareykanka waxa sidoo kale la bedelay saraakiil sare oo ka tirsanaa dhinaca qaybta gaashaanbuurta NATO ama Mareykanka halkaasi ku matalayay iyo xubno ka tirsanaa hay'adda sirdoonka ee militariga waxa muuqata marka madaxweyne Trump iyo wasiirkiisa gaashaandhigga inay doonayaan ugu yaraan inay yareeyaan tirada generaalada haddii talaabadan ay qaadaan oo ay kordhiyaan tirada askarta si loo dhiso ciidan badan oo toos ah loona dhimo dhibaatada xooggan ee gaari karta saraakiisha iyo maamulka ciidanka tani marka waa arrin aan caadi ahayn taariikhda Mareykanka marka la eego waxaana suuragal ah in lagu dhisayo ciidan leh mabda' cusub oo u diyaarsan dagaal caalami ah ama ciidan lagu sifeyn karayo inay daacad u yihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kulanka maalinta biri oo Talaada ayuu ka dhici doonaa saldhigga ciidamada badda ee dowladda Mareykanka ee Quantico oo gudaha dalkaasi Mareykanka waxaana la qorsheeyay kulankan muddo saacadaha inuu socdo waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha laakiin dhinaca kale marka adeegto ma waxa loo diyaar garoobayaa dagaalka saddexaad ee dunida saraakiisha iyo qobarada dhanka amniga waxay aaminsan yihiin in xaaladani aysan ahayn mid caadi ah
bariga dhexena waxa laga baqayaa mar kale dagaal kale oo adag inuu aado iyadoo aan la saadaalin karaynin halka dhacdada lama filaanka ay ka bilaaban karto laakiin markaad eegto siday wax u socdaan waxa lama huraana mar kale in madaxa la isla galo dagaal kalena ay dhacaan wixii dhacay bishii June ee sanadkan oo dagaal u dhexmaray Iran iyo sidoo kale Israa'iil waxay dadka qaarkii ku tilmaamayaan wax bilow u ahaa isbedelka guud ahaan ee gobolka bariga dhexe aragtidaadana la wadaag like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada wad mahadsantahay sida warbaahinta ay baahisay madaxweynaha dowladda Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa la gaarsiiyay fariin ka timid madaxweyne Trump waxaana markii labaad muddo bil gudahooda ay kulmeen madaxweynaha isutaga Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed kaasoo maanta tagay magaalada Qaahira oo caasimadda dalka Masar ah Al Nahyan oo magaalada Qaahira maanta taga ayaa lagu waramayaa kulan saacado qaatay inuu la yeeshay madaxweynaha dowladda Masar afayeenka madaxtooyada ee dowladda Masar Mohammed al-Shanawi wuxuu sheegay kulankaasi in looga wada hadlay sidii loo ballaarin lahaa kulamada joogtada ah ee u dhaxeeya labada dowladood sidoo kalena ay xiriir joogto ah u sameyn lahaayeen inkastoo kulanka ay mas'uuliyiinta ay yeesheen la sheegay inuu ahaa mid albaabada u xiran yahay macluumaad badanna aan laga helin laakiin warbaahinta RT ee dalka Ruushka waxay baahinaysaa in wada hadalku diiradda lagu saaray fariin ka timid madaxweynaha Mareykanka oo la gaarsiiyay Cabdifataax al-Siisi laakiin dhinaca kale markaad eegto labadani mas'uul kama aysan qayb galin kulankii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka iyo shirka golaha guud ee qaramada midoobay wakiilada ayaa ku matalayay wakiilada dowladda Imaaraadka Carabta ku matalayay ee shirkii magaalada New York waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu sida uu sheegay la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo warbaahinta la hadlay kulankaasina wuxuu ku tilmaamay mid miro dhal ah Imaaraadku wuxuu si weyn uga soo horjeedaa aragtida barakicinta ee dadka shacabka ee dhanka daanta galbeed Masarna waxay ka soo horjeedaa barakicinta dadka shacabka ee magaalada Gaza qadcas ay labaduba u aqoonsan yihiin waxaana ay dadku ay yiraahdeen Israa'iil waxay ka fikiraysaa inay ka talaawdo qadkaasi cas oo dowladaha Carabta ay dhigteen haddaba markii kulankii Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil u dhacay sidaas oo kale Trump ayaa la kulmay xubnaha isutaga Imaaraadka Carabta waxyaabihii ay ka wada hadleen sida hoosena macluumaad laga ma helin xitaa ugu yaraan faahfaahin laga ma helin kulankooda iyo muddadii uu socday waxa isweydiin mudan marka fariinta ka timid madaxweyne Trump waxa loo soo dhiibay wafdiga Imaaraadka Carabta ku matalayay magaalada Washington kulankii ka dhacay oo sidaas miyaa lagu soo gaarsiiyay madaxweynaha isutaga Imaaraadka Carabta dhinaca kale marka deegtay Imaaraadka Carabta maalgelin ayuu doonayaa inuu ku sameeyo dowladda Masar ama deegaanada dalkaasi Masar sidoo kale waxaa jirta arrin loo wada tartamayo oo ah mashruuca dib u dhiska ee magaalada Gaza oo dowladaha Carabta hadda ay ku sii fakarayaan in mid ay ku guuleysato dib u dhiska ama qorshaha la doonayo in magaalada Gaza dib u dhis lagu sameeyo tartankaasi marka wuxuu u dhaxeeyaa shirkadaha Turkiga Masaarida Imaaraadka Carabta Sacuudiga iyo xitaa Qatar waxay ku fikirayaan mar haddii dagaalku idlaabo balaayiinta dollar ee la doonayo dib u dhis in lagu sameeyo magaalada Gaza inay ugu yaraan iyaga ay ku guuleystaan tartankaasina dhinac ayuu ka socdaa laakiin caqabado waaweyn ayaa hadda jira oo ah dagaalkaas iyo sidii loo soo gabagabayn lahaa oo waxyaabo badan ayaan la isku fahamsanayn Imaaraadka waxa dhankiisu doonaya dhaqaale inuu ku bixiyo dib u dhiska magaalada Gaza iyo sidoo kale dib u dhiska ciidamada la doonayo inay la wareegaan amniga guud ahaan ee magaalada Gaza ciidankaas oo tababarka Masaaridu ay u bilaabeen wargeysku marka macluumaad badan ma uusan bixin laakiin arrimahaas oo idil waxaan kuugu sheegay waxay tahay inaad ku darsato xisaabaadka inay dhaqdhaqaaqyadaas oo idil ay soconayaan madaxtooyada dowladda Masar waxay sheegtay in xiriirka u dhaxeeya Imaaraadka iyo Masar uu aad u wanaagsan yahay horumar weyn laga gaaray Mohammed bin Zayed ayaa sidoo kale lagu waramayaa inuu Masar kala hadlay maalgelin xoogan oo la doonayo dalkaas in lagu sameeyo dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale soo jiidashada dadka dalxiisayaasha ah labada hogaamiye ayaa lagu waramayaa marka inay ka wada hadleen soo jeedinta madaxweynaha dowladda Mareykanka oo la doonayo dagaalka in lagu soo gabagabeeyo iyo ahmiyadda ay leedahay in la taageero qorshe nabadeed oo dagaalkaasi lagu soo gabagabayn karo aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa dadaal badan bixinaya madaxweyne Trump ergeygiisa gaarka ah ee u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff iyo Jared Kushner waxay kulamo kala duwan la yeesheen mas'uuliyiinta Israa'iil iyo xubnihii kale ee dowladaha Islaamka iyo Carabta aragtidan ayaana la hordhigay oo 21 qodob ka kooban waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha insha Allah barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa dowladda Spain waxa lagu waramayaa inay gabi ahaanba ay soo istaagtay diyaarado iyo maraakiib Mareykanka uu leeyahay oo hubsiday hubkaas oo la doonaya in Israa'iil ay isticmaasho iyadoo la doonaya in la marsiiyo maraakiibta dagaal
iyo diyaaradahaasiba magaalooyinka Cadiz iyo sidoo kale Sevilla ama Sevilla oo dalkaasi Spain ka tirsan. sida laga soo xigtay ila ku dhow guddiga wadajirka ee dowladda Spain iyo Mareykanka ee maamula saldhigga Mareykanka uu isticmaalo oo ku yaala gudaha dalkaasi ayaa lagu waramayaa in xukuumadda Madrid ay joojisay in hubkaasi Mareykanka la marsiiyo saldhigga uu ku leeyahay dalkaasi Spain kadibna laga dejiyo gudaha Israel. Spain waxay ka hortagaysaa qorshe kasta oo hub lagu gaarsiin karayo gudaha Israel maadaama hore ay go'aano adag ay kaga qaateen in hub dhankooda la soo marsiiyo. Hore bayna u yiraahdeen hawadeenna iyo badeennaba lama marsiin doono hub loo sida dhanka Israel. dhinaca kale xoogagga iska cabinta ee Xamaas muuqaalkii ay baahiyeen shalay oo Axad ahayd waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah weeraradii ugu adkaa oo ay la kulmaan ciidamada Israel ee ku sugan gudaha magaalada Gaza. sidoo kale weerarkan waxay warbaahinta Israel maanta u falanqeynaysaa si aanan caadi ahayn oo waxay leeyihiin waa weerarkii ugu xoogganaa tan iyo 7 Oktoobar. muddo 30 ilaa 45 daqiiqo ayaa weerarkani uu socday. qobarada dhanka militariga waati ay yiraahdeen sida weerarka loo abaabulay muddada dagaalyahanada ay ku sugnaayeen saldhigga ku yaala dhanka Qanyunis waa mid aanan caadi ahayn. Iiraan iyo Israel waxa laga baqayaa mar kale inay dagaalamaan. warbaahinta ayaa baahinaysa macluumaadka ku saabsan diyaargarow xooggan oo soconaya. dhaqdhaqaaq ayaana dhanka gobolka sidoo kale la dareemayaa oo dhanka amniga ah iyadoo laga baqayo Iiraan haddii cunaqabateyn lagu soo rogo inay go'aan adag ay qaadato. cunaqabateyntaasina ay horseedi doonto mar kale gobolka bariga dhexe inuu aado jiha kale ama marxalad kale. Israa'iilna waxay shaaci ka qaaday maanta oo Isniin laba ka mid ah gantaalada xoogagga iska cabinta ay ku weerareen deegaanada Israa'iil ee xoogga ay ku haysato in laga hortagay. waxaana gantaaladan ay sheegeen waqooyiga magaalada Gaza in laga tuuray. warbaahinta Israa'iil ayaa shaacisay in gantaaladani nidaam difaaceedka Israa'iil uu dhulka uu soo dhigay. waliba Israa'iil waxay taagan tahay ka hor inta aysan ka soo bixin hawada magaalada Gaza ayaan burburinay labadani gantaal. tan laakiin dhinaca kale waxay muujinaysaa wili xoogagga iska cabinta inay awood u leeyihiin inay gantaalo ka tuuri karayaan gudaha magaalada Gaza. iyadoo Israa'iil dhowr jeer ay sheegtay inay gabi ahaan ay burburiyeen halkii gantaalada ay ku keysanayeen xoogagga warshadihii gantaalada soo saarayay iyo halkii laga soo tuurayaba. agagarka cisbitaalka Al-Shifana dhinaca kale Israa'iil ayaa burburisay dhismayaal aad u badan oo halkaasi ku yaalay. maalintii shalay Israa'iil waxay sidoo kale ay dhulka dhigtay mid ka mid ah dabaqyada ugu dhaadheer oo ku yaala gudaha magaalada Gaza. duqeymaha ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoogga lagu saaraya dhismayaasha dhaadheer. wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegnana 27 ruux ayaa lagu waramayaa inay waxyeello kala duwan ay soo gaareen iyadoo 23 ka mid ah dadkaasi la sheegay inay ku shahiideen duqeyntii maanta. dhaawacyadu ayaa sidoo kale lagu waramayaa inay aad u kordheen. warbaahinta waxay kaloo baahinaysaa in xarumaha caafimaadka la geeyay dad dhaawacyo halis ah qaba kuwaas oo laga soo qaaday xarumaha caafimaadka ee ku yaala gudaha magaalada Gaza. ugu dambeyntiina safiirka Jarmalka u fadhiya magaalada Qaahira oo dalka Masar ayaa waxa uu ka digay Israa'iil iyo isticmaalka dhanka awoodda ah ee sii kordhaysa. Jargon Sholis ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu dowladda Masar uu ku amaanay doorka dhexdhexaadin iyo sidoo kale dadaalada ay ku bixinayso sidii loo joojin lahaa dagaalka iyo qorshe kasta oo gargaar bini'aadanimo lagu gaarsiinayo dadka shacabka ee Falastiiniyiinta. safiirka dowladda Jarmalka ee magaalada Qaahira waxa uu sidoo kale uu sheegay in dadaal badan dhankooda ay ku bixinayaan ayna cambaaraynayaan qorshaha Israa'iil ee hubka culus ugu adeegsanaysa dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha magaalada Gaza. arrimahan oo idil waxyaabaha ka soo kordhay aan kula wadaagi doono insha Allah. nabadgelyo caafimaad qab wanaagsan.